kulanti wanaagsan daawadaal kuna soo dhawaada janalkeena ka wararka aan ku soo gudbin wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka noqon doona wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta saxiixay heshiiska doorashada Soomaaliya xilliga dalka doorashada ay ka dhaceyso oo la shaaciyay munaasabada lagu saxiixay heshiiska arrimaha doorashooyinka oo maanta si weyn ugu kulmay madaxda waqtigoodu dhamaaday iyo madaxweynayaasha hore ee dalka wajih in muddo aan is arkin isla markaana si weyn baraha bulshada iskugu marin jiray fariimahan dadaal iyo markaas codaalin ah oo maanta mar kale isku rimid teenada Arizona ee Muqdisho farmaajo ma laga reebay saxiixa maanta ay sameeyeen madaxweynayaasha maamulada iyo wasaar Roble xog ku saabsan ayaa daawan doontaan iyo qodobada ugu muhiimsan ee laga heshiiyay ee warmurtiyeedka ka soo baxay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya munaasabada oo socota waa soo gudbi doona saaxiibayaal inta ugu badan jadwalkeena caawa ama markaas channelkeena wararka waaweyn ee Soomaaliya aan ku soo gudbin waxay noqon doontaa arinta ku saabsan shirka doorashada iyo xafladda maanta munaasabada heshiiska doorashada lagu saxiixayo hadii aad naga soo taafadaan subscribe oo taagan balka nafro wana shir galay saaxiibada marka sii joogan adigoo markaas ku matiga laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin waxaan ku bilaabeynaa magaalada Muqdisho waxaa markaasi tan ilaa iyo maalmihii ugu dambeeyay ka socday qabanqaabadii ugu dambeysay u jeergarowga munaasabada lagu soo xiriyo shirka arrimaha doorashooyinka ee maalmihii la soo dhaafay ka socday teenada Arizona oo ku dhaxtala xirada xarada ee magaalada Muqdisho munaasabada soo kale lagu saxiixay heshiiska doorashooyinka ayaa waxaa markaas u diyaarsanay inay ka qayb galaan dhammaanba madaxweynayaasha maamulada dowlad goboleedyada dalka madaxda dowladda federaalka mucaaradka iyo bulshada rayidka ugu dambeyntii maanta oo taariikhu tahay markaasi 27 bisha shanaad May 2021 ayayna suura gashay in la isugu yimaado teenada Arizona isla markaana madaxweynayaasha maamulada iyo soo kaleente wasaar Roble ee saxiixaan heshiiskaasi Roble iyo saxiixayaasha kale ayaa qalinka ku duugay heshiiska doorashada iyadoona maanta la soo xiriyo shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho sida uu baahiyay xafiiska wasaar Roble ayaa si wadajir ah u saxiixay heshiiska doorashada kaas oo xal loogu raadinayo ismarwaaga ka taagan muranka doorashada dalka madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada ayaa maalmihii la soo dhaafay isku fahmi waayay qodobo adag oo markaasi ku gudbana doorashada taas oo fududeysay in markaas heshiis ay ka gaaraan dhammaan dhinacyada Soomaaliya ay isku haysteen waxaana haatan munaasabada goordhow markaasi soo gabagabowday oo markaas khudbadaha jeediyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ra'iisul wasaare Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha waqtigiisu soo dhamaaday oo khudbada soo xiray iyo madaxweynayaasha hore ee dalka ayaa dhammaantoodba waxa ay bogaadeen heshiiskan iyo sida xukuumaddu ugu shaqeysay madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka Roble oo khudbada ugu horeysay furitaankiisa qaatay ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu kaga mahadcelinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa uu meesha ka saaray in markaas wixii madmadow jiray la soo gabagabay mar dambe ay dib u soo dhici doonaan asagoo erayga caanka ku ahaa ee halheeska si weyn eraygaasi uu markaasi ku noqday baraha bulshada mid caan ah oo ah soo dhawaada ayuu markuu khudbadiisa dhameeyay ku soo gabagabay asagoo mucaaradka fariin u diray oo ah inaysan gadaasha fila Soomaaliya ka raadin arrinta doorashada balse hortiisa ay yimaadaan waa sida markaas khudbadiisa uu ku soo gabagabay BM Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo asna ku sugan xafladda isla markaana munaasabada soo gabagabeynaya ayaa waxa uu ka hadlayaa arrinta ku saabsan heshiiska la gaaray iyo caqabadihii ku horgudbana iyo dhammaan eedihii u jeedin jiray madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxaa hadda la shaaciyay isla markaana ay xukuumaddu shaacisay qodobada ugu muhiimsan ee ku saabsan shirka doorashada iyo heshiiskii la gaaray iyo sidii markaas ay qodobada ay kalihiin waxaan ku bilaabeynaa in muddo 5 maalmood lagu bedelo xubnaha lagu muransan yahay guddiga doorashooyinka iyadoo markaas wasaaraha loo gudbinayo baadiyay xubnaha cabashada laga qabo labo in wasaar Roble uu daadiyo geedi socodka doorashooyinka wakiilada Soomaaliland iyadoo markaas afyeenka Cabdi Xaasho uu soo magacaabayo 6 xubnood wada ahaan labada guddi ee farsamo saddex in guddiga heshiisiin loo saaro nabadeynta gobolka Gedo iyadoo markaas Jubbaland aysan qayb ka ahayn guddiga ayaana min 2 xubnood ay ku leeyihiin maamulada in ciidamada AMISOM loo diro gobolka Gedo si ay qayb uga noqdaan qorshaha nabadeynta in taliyaasha ciidamada amniga aysan qayb ka noqon siyaasadda iyo ololaha doorashooyinka iyo ugu dambeyn
in 60 maalmood lagu qabto doorashada guud ee dalka ka dhacaysa iyada oo guddida heer federaal ay soo saarayaan jadwalka iyaga oo tixraacaya muddadaasi la asteeyay. waa tillaabadii ugu cusleed oo markaa xukuumaddu ay qaaday iyo madaxda maamul goboleedyada isla markaana heshiis buuxa laga gaaray doodihii iyo caqabadihii ku horgudboonaa arrimaha doorashooyinka dalka. tan ayaa soo afjaraysa midmadowga ka taagnaa siyaasadda arrimaha Soomaaliya. haatan waxay u muuqataa in nin walbaba uu dhirigiisa meel ku raadsan doono isla markaana midowga musharaxiintu ay noqon doonaan qolo walbaba in ay si gaar ah wax u raadsato maadaama heshiis la gaaray dhammaantoodna ay ahaayeen kuwo aragti ka midaysan dagaalka lagula jiro farmaajo. haatanse soo gabagaboobaya oo musharax walbaba waxa uu dib ugu laaban doonaa deegaan doorashadiisa isla markaana wuxuu bilaabi doonaa ololaha ku aadan tartanka kursiga ugu sareeya ee madaxtinimada ee Soomaaliya. qaybihii hore channelkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambar kana furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo markaa isku matiga laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. weli waxaan ku guul jirnaa daawadayaal wararka ku saabsan heshiiska doorashada iyo munaasabadda markaasi maanta teendhada Arizona ee heshiiska lagu saxayo. inta uusan shirka furmin waxaa bilowday taagtaag iyo madmadow aad u culus iyo khilaaf hor leh oo ka yimid dhanka siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo hogaaminayay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. shirka ayaa lagu badansanaa in saake 8 subaxnimada la furo isla markaana munaasabadda ay dhacdo hase yeeshee dib u dhac ku yimid oo Cabdi Xaashi sabab u ahaa sabab la xiriira in uu walaac ka muujiyay qoondada ahaa in guddida laga siiyay 4 xubnood oo taas si weyn ugu soo horjeestay. waxaa arrintaas markii dambe ka degmada musharaxiinta oo hogaaminayeen madaxweynayaasha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo hoygiisa ku booqday Cabdi Xaashi ayagoona ku qanciyay inuu xafladda ka soo qayb galo isla markaana hadalkaas ka hadlo. waxaana ugu dambeyntii wasaaraha uu ku biiray xalinta arrintaas waxaana loo asteeyay in labada dhinac ay kala hogaaminayaan Cabdi Xaashi iyo wasaar ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar in labada dhinacba ay soo kala xunaan min 6 xubnood oo dhinacyada ka soo jeeda gobolada waqooyi taas oo ciyaarta ka dhigaysa mid barbara ah. waxaa in laga gaaray xalka qodobkii caqabada ku noqday xafladda saxiixa heshiiska doorashooyinka ee Arizona. shirka ayaana waxa uu furmay saake 8 ama 9 inkastoo Cabdi Xaashi taasi waxa ay ka dhigaysaa in markaas la soo afjaro midmadowgii ka taagnaa khilaafka arrimaha doorashooyinka. haatan dalka toos doorasho u aada ayadoo aan waxba lagu xirin shuruud la'aanba maadaama la soo gabagabeeyay isla markaana munaasabadii lagu soo xirayay maanta si weyn magaalada Muqdisho looga dareemay. waxaana xafladda ku sugan dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada midowga musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir wakiilada beesha caalamka ururada bulshada rayidka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo markaas si weyn u daawanaya isla markaana ula socda khudbadaha iyo hadallada ay jeedinayaan musharaxiinta iyo sidoo kale madaxda ka soo qayb gashay shirka. bahda warbaahinta ayaa qayb ka ah oo ayaguna saaka halka tagay soo tubintana u jooga iyo heshiisyada halkaas laga gaaray. qaybihii dambe ee channelkeena ka ah wararka ayaa daawanaysaan. fadlan ha hilmaamin inaad subscribe ka saarto gambarkan aad furto una share geliso saaxiibada had iyo jeer meel kasta joogaan. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo la socoshada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo caalamka. intaan ka bixin arrimaha ku aadan shirka iyo munaasabadda ee markaasi lagu saxay maanta heshiiska arrimaha doorashooyinka ee xafladda teendhada Arizona ka dhacday waxaa markaasi walaac ka muujiyay arrin ku saabsaneed in markaas guddiga amaanada xafladda waqtigeedu aad ugu dib dhacday maadaama 9 subaxnimo loo balansanaa. waxaa ka hadlay ergeyga midowga Yurub ku qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Balaranka Martinez asagoo sheegay in aad ay ugu walaacsan yihiin isla markaana ay ku xiyeen in Soomaalidu shirka ay isbaramiyaan waqti hore hase yeeshee taa beddelkeedu ay ka dib dhacdo waqti aan loogu talagalin munaasabadda ay bilaabato. Nicholas Balaranka waxa uu sheegay in haddii saan ay tahay marka hore waqtiga la asteeyo laga fiirsado isla markaana dib aysan u soo dhicin in waqtiyada qaarkood dib loogu laabto. guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararka waaweyn Soomaaliya caalamka khudbadaha oo madaxweynayaashu ay jeedinayaan iyo hadallada oo socda sabab awgeed inaan soo gudbin karin hase yeeshee marka